السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كعاد نقل صعوتان وورباهنتي تيس ميديا إسماعيل حرس عقال أي يديسو بدون برنامج كان يقضب ذا وكساب سنيهي وقضب حساسية أي نكبلون إيه باسبور كي سومالي لان أو مريكان كأقول سفارات كاستي وليهي إن لقد دوفي دونه sidoo kale inantii yareed shalay toole isku duubtay madaxweynaha oo iyana hadiyad la gudoonsiyay waa daawan doona Suldaan Cabdirashiid oo ah suldaanka guud ee beesha Sabaroon oo Britoole lagu soo dhaweyn doono ama laga filayaba in lagu soo dhaweeyo gobolkii Awdal qodobada iyo qodobo kale oo xasaasi ah way isdul taagi doona barnaamijka share gare aragtidaadana kaga qayb qaado sidoo kale subscribe dhahdanaad hore ila joogin waayahay aynu ku horreynay ee suldaankii guud ee beesha Sabaroon Suldaan Cabdirashiid oo Britoole lagu soo dhaweyn doono gobolkii Awdal halkaas oo ay ku soo dhaweyn doonaan dadkii uu suldaanka u ahaa iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantoodba wadooyinka isu taagi doonaan annana waxaan u leenahay suldaan soo dhawow waayahay dhinaca kale waxa jirta inantii yareyd ee shalay toole madaxweynaha isku duubtay oo wajigeedu u ekaa inan yaro fiican ina taayir bal hadaba maanta waxa la gudoonsiyay hadiyadaasi waxa ay ka kooban tahay wili Nairobi sheegin balse meeqaamkeeda kor baa loo qaaday iyada laftigeeduna shalay toole waraysi laga qaaday waxay ku ballan qaaday in ay noqon doonto madaxweynaha mustaqbalka waqtigeedana way sugi doontaa insha Allah ta'ala waayahay bal hadaba waxa weeye taasi waxa weeye hankeeda iyo himiladeeda waxaana weeye rajada ay leedahay waxa laga yaabaa inay uga rumowdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu uga dareen celiyay shacabka iyo caruurta iyo dhalinyarada waayeelka iyo dadka kala duwan ee uu madaxweynaha u yahay isaga oo mid walba ku maamusay meeqaamka uu leeyahay iyo teetalkiisa taasi waxay u dhigan tahay nin bulshadiisii kamid ah wili alaankaas oo aan afka taagin halka aynu kaga gudubno barnaamijka inantaa yar ee muwaadinada iyo madaxweynaha dhexmartay ama mas'uuliyiinta dawladda dhinacan iyo baasaboorkii Soomaaliland maxaa lagu soo sheegay anigu meelba horta uma socdoba waxa la idin sheegayaa bulshada reer Soomaaliland ama ku farxa ama ku dhoofa baasaboorkii Soomaaliland caawa laga bilaabo oo ay tahay bishu 21 waxa la idin sheegay safaarad kaste oo Mareykanku leeyahay Nairobi Ethiopia iyo Djibouti bay ugu dhaweeyeen waa lagaga dhoofi karaa halka maxaa sheegay lagu tagayana waa wadamo kala duwan oo aqbalay baasaboorka waayahay arrinka aynu ka soo qaadanay ama barnaamijkan xaqiiqadiisa xageen ku keenay wasiirka arrimaha gudaha wasiir Cabdalla Sandheere ayaa arrinka bulshada reer Soomaaliland la wadaagay isagoo bartiisa Facebook qoraal ku soo dhigay bal hadaba waxa weeye baasaboorkii reer Soomaaliland marka ay ku dhoofaan ee ku tagaan Mareykanka waxa awalba aynu rabnay aqoonsi kala ma ahayn inaynu iskeen wax u dhoofsan karno inana u dhoofi karno ula soo digi karno baasaboorkeena meel walba lagu fiisayn karo aqabada koobaad ee haysatayna kamid bay ahayd waxa weeye ka ardayga iyo ka caafimaad raadinaya ka dhoofayaaba baasaboor Soomaaliya buu baahan jiray halkaas oo wadamada aynu qabanaana ad safaarad Soomaaliya tagay jirtay safaarada Soomaaliya ayaad arrimahaaga ugu dana sheegin jirtay maanta waa laga baxay waxa Soomaaliya maanta baasaboorkeeda laguma dhoofi karo uguliga siiba ahaan America laguma tagi karo waxay ku jirtaa 11kii wadan ee Donald Trump calaamadiyay ya 11kii wadan ee Donald Trump calaamadiyay calaamada casaaray ayay ku jirtay marka baasaboorkii Soomaaliya maanta halkaas lagu dhaafayaa waxaad arki doontaa iyada oo ganacsatada iyo dhalinyarada jaamacadaha qabanaysa iyo dadka kala duwan ee calanka buluuga wali sii hoos jooga iyaga oo maanta Hargeysa ka dalbanaya baasaboorka Soomaaliland oo sheegan doono reer Soomaaliland oo ay suxulka soo wada dhigan doonaan mid la dhalay iyo mid bari Soomaaliland maxaa sheegay ka tirsanaan jiray iyo mid bari socdaal ku soo marayba waxa kale oo aan halkan uga sheegayaa dhalinyaradii aan isku asxaabta ahayn gaar ahaan harti waqooyi maanta Soomaaliland iyo Soomaaliya wada aragtaan farqiga u dhaxeeya waxaan oran lahaa hadii qabiil isku socod midho ay noqoto oo la soo cayo ilmaha reeyalo qabiilka
waad ogtihiin maanta kacidiidu ku dhow inaa coltihiin waxa weeye Saciid Cabdulaahi Deni hadduu iminka maanta madaxweynuhu doonayaa waxaanan ogahay in aanu maanta harti waqooyi ka helaynin cod qabiil horta isaga halkaa kaga taamila qaado qabiilku inaanu dan joogtaaba lahayba laakiin siyaasaddu ay leedahay isbedel shalay toole isaga ogoladeen Xasan Sheekh Maxamuud nin irir Soomaaliya ku sheegisay waxa la haydan wuxuu la socdaa Soomaaliland maanta si ka warrama arrinkaas maxaa isbedelku yimi muxuu ahaa waxa weeye waliba mas'uuliyiintiina ayaa oran jirtay Xasan Sheekh Maxamuud waa nin irir Soomaaliya uu la socdaa Ismaaciil Cumar Geelle waa irir Soomaali maxaa sheegay dhammaantood Xamse Cabdi Barre qof dhintay uu waayay mid dhintay baa baxsaday arrimahaasi wuxuu ahaa arrimaha dhigaha iyaga ka badan jiray waxaase maanta aad idinka qudhiino markhaati ka tihiin wax irir la yiraahaa inaanay jirin ee cadawga Somaliland uu yahay mid maanta meesha laga soo duulaya ay tahay halkii idinkana la idinkaga soo duulay sababtoo tahay maalintii ka horeysay meydaan aqoon wax la yiraaho qabiil inaad ku abtirsataan mooyaan saamiga aad lahaydeenna waxa weeye tabasho haddaa ka qabteen tabashadii maanta Google nabadeed baa taala madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland dhiga waxaa markaa loogu baaqayaa cid kasta oo Somaliland ka maqan oo tabasho kaga maqan waxaanan idin cadeynayaa inta maanta waqooyi bari iyo sheeganaysa iyo Puntland baa maamusha halkan iyo waxaasi waa inta maanta horta anigu danahaygan ku mashquulsanahay waxa jiray qaar annaga nala soo xiriiraya na soo qodqodayo leh maxaa wax nooga sheegi weyday waanu iska deynay tani nooguma jirto danaha iyaga gaarka ayaan ku mashquulay sababtoo maanta Somaliland waxaad ogtihiin in ay ku murmayaan dawladaha caalamiga ah waa China iyo Mareykan iyo Masar iyo Turki iyo wixii la mid ah ayaa maanta ku muransan oo nin waliba doonaya halkii uu kaga soo dhawaan lahaa kuwii u taag heli waayay cadawgooda ahaa xitaa waxay doonayaan maanta inay wada hadallo rasmiya iyo maxaa sheegay safaarado keensadaan waxay taas cadeyn kuugu filan tahay in aanu maanta tartankii siyaasadeed lagu jiray ku guuleysanay oo banaan istaagay ninka maanta moodaya Xasan Sheekh Maxamuud inuu dan u wado muqdisho dhexdeeda kaga taamila qaado waxba yaan 4 milyan oo dollar ee soo gashay maanta halkan xildhibaanada lagu doorayaa يعني وقت جيد كلامني بريتولي يعني أركي يدك ولا والله وانا الخلطة تنا أشوفتنا حساب قرنبا لا سوقي مرة يدك حلي يدك ويدينا وحوي جورج أفريقيا أيها لو حساب تمايا حدودها عالمي جاي يقينوا كيليهم بل حساب تمايا وحن أهابان أحيانو Soomaaliya waxay ahayd been noqonaysa waxaana laga yaabaa Soomaaliya in anaga laftigeeyo u noqonaba maxaan sheegay waxtarkeeda ka shaqeyn doona waayo dadka shacabka laguma eegan karo sida maanta ay siyaasiyiinta Soomaaliya ee horgasha ay ku maamulayso looma adkaysan karo sababtu tahay anaga shacabku waxba naguma sameyn maanta waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud danta uu ka leeyahay ma aha dan siyaasadeed oo meel kula gaari karta waxa kaliya oo meesha ku jira waa nin gurigiisa wuxuu doonaya laakiin Britoola waxaad arki doontaan iyadoo la leeyahay Somaliland xuduudaheeda xor bay u tahay waxaad arki doontaan iyadoo oo maanta Britoola xuduudka Somaliland ay ilaalin doontaan sababtoo tahay Somaliland kaamilihi wadila leedahay laakiin tabashar qabtay maantana waxaan isku mashquuliseen wax allaale iyo meel uu idin gaarsiinaya ma jirto maanta ilmaadareelo waxaan idin sheegayaa wixii aad Somaliland ku lahaydeen idin ka dayacmay taas waa runbar idin sheegaya maanta Soomaaliya wax la yahay ma jiri doonto laakiin Somaliland waxay noqon doontaa dawladda Geeska Afrika inta ugu badan hogaamisa xataa Djibouti aad arkaysaa waa inta Somaliland la dhisay heeno waxa weeye Djibouti saldhigyadii baad aragtaan oo lagala soo guuriyay maanta marka waxa weeye aan runta idinka sheegayaa harti waqooyi marka aan leeyahay waa warsagariyo dhulbahante Somaliland maanta matalaad way ku leeyihiin cod baan ku yimaadeen kuma iman caadifad ya cod bay ku joogaan oo ku fadhiyaan
maantana waxa weeye booska aad ku leedihiin dee waa mid aa iminkaba aad dee ku matashaan laakiin waxaan idin leeyahay dadka shacabka ee loogu sheekeeyo waxaan iyo baarlamaan baynu xuraynaa iyo waqooyi bari baynu samaynaynaa iyo dee horta qofkii caqli leh wuu iska garanaya nin dan lahunbaa ila waxaan watee meeshu doonaha ka socdo waa nin dan leh ka somaliland kaa joogaana waa nin kugu matalo oo mas-uulkaaga kaad iminka wadana halku ku wada barkaa balaysu qiyaaso mid waliba wuu ku matalaaye waxba ayaan indhaha layska tuurin nin kastaaba meesha uu kuu hogaaminayo wuxuu kugu hogaaminayo xor baad u tahay horta taa iminka laakiin haddii ay socon weydo waxaan tusayaa xuduudaha somaliland oo muqadis noqon doona oo guriga afrika lagaga tashan doono oo soomaaliya maxkamad lagu saari doono arrimaha faragelinta ay ku hayso somaliland taasi waa qodob waayahay barnaamijkan markaa waxaynu ku soo gebagabeynaynaa xukuumadda somaliland maanta haddii ay heshay aqoonsiga markaan leeyahay anigu haddii aan baasaboorkaygii la aqbalay aqoonsi iga maqan maanaa ogba waxa iga maqanee kaleba waa maxay waa inaan xorna u tago xorna aanay soomaaliya igaga xidhmin dee tegistaankaygii soo degisteedu toona ku xidhmin taasi waa intaa waxaase laakiin ku hoos duugan inaad maanta cadow fara badan oo aan markii hore indhaha kugu hayn uu hadda il gaara kugu hayo waxaad ogaataan maanta dowladihii quwadaha ugu waaweyn lahaa inay maanta isku dayayaan somaliland sidii ay khalkhal u gelin lahaayeen oo taalaas caanoodba awoodda ka dambaysa aanay ahayn xasan sheekh maxamuud oo qura ee ay tahay mid laysla kaashaday oo samada iyo aradkaba laysaga yeedhay barnaamijkan halkaasaynu kusoo gebagabeynaynaa aragtidaadana waad kaga qayb qaadan doontaa baaq nabadeed ba layaha magaciisa barnaamijkan waxaan idinku soo gebagabeynayaa in nebiga lagu saliyo sabskaraabtana aanad naga ilaawin calayhi salaatu wasalaam tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo idinkuna falaanqayntiina dee hala raagina waa sidii